waxaa maanta oo Sabti ah taariikhdan ay ku aastaysan tahay 18 bisha 6 sanadka 2022 si rasmi ah ugu bilaabmay gobolada dalka imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee dugsiga sare gudoomiyaha degmada Buloburti Axmed Mahad Nuur oo wehelinaya duqa degmada Maxamed Sheekh Sharaawe ayaa daafuray imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee degmada Buloburti ee gobolka Hiiraan wanaagsan subax nasiib badan insha Allah taala waa sanadkii idinku dambeysay waxbarashada oo form 4kii imtixaankiisii qaaliga ah ay fariisanaysan yani arday walba waxa laga rabaa insha Allah inuu isdajiyo imtixaan waa badan yahay waa naxdin badan yahay in naxdinta badan idinka badnaanin oo yani wixii aad soo barateen ay idin siisajin dad geesiyaal iska dhiga insha Allah ku dadaala inaad si tartiib ah ugu jawaabtaan jawaab walba ama su'aal walba idin hortaala si aad mustaqbalkiina u saxdaan waa inaad dadaashaan dadaalkiini 14 sano lagu soo dadaalayay maxsuulkiisi waa si wanaagsan aan u dadaalno yani mustaqbalkeena aan luminin waxbarashadu waa shayga asaasiga ah maciisi oo naf walbana ay ku tiirsan tahay nafa wax aqoon wax ma tarto bulshadiina wax baranaysaan dadaal waa insha Allah waxaan idin kula dardaarmaynaa haddii aan mas'uuliyiinta degmada nahay in ilaahay idinka yeelo kuwii hore oo kaleeto degmada magaca iyo muuqaalka u soo jeedi jiray inaad tihiin ama la mid noqotaan khayr baan idin rajaynaynaa guul baan idin rajaynaynaa insha Allah ardadeeni degmada Buloburti form 4 sanadkan 2022 loodkii ahay ayaad ilaahay idin makaniyay marka loodlooda loo soo maray degmadan wax badan oo hadda ka hor soo maray ayaa jiray adika maanta marka waqtigiina maanta idin makaniyay dadaalkii ilaahay aad soo dadaasheen oo dhinaca waalidka iyo macallimiinta idinku soo dadaaleen ayaad maanta ka tarjumaysaan marka waxaan rajaynaynaa insha Allah guul aan idin rajaynaynaa qaar ka mid ah ardayda maanta u fadhiisanaysa imtixaanka ayaa dareenkooda ka warbixiyay magacay waa Baxsi Maxamuud Samaaciile maanta waxa u galeynaa imtixaanka shahaadiga ee dugsi sare fasalka form 4 aad iyo aad u faraxsanahay maadaama waqti badan wax soo baranay maanta imtixaankii ugu dambeeyay shahaadiga ee dugsiga sare aan ku galeynaa iskuulka Sheekh Maxamed Balcad waliba aan dhigtay iskuulka Sheekh Maxamed Balcad anigoo magacaygu yahay Cabduqaadir Xasan Ibrahim kana socda iskuulka oo saddex sare ee Deebley Primary Secondary School maanta oo taariikhdu ku beegantahay 18 bisha June 2022 waxaan imtixaan u fariisanay imtixaanka shahaadiga xarunta Sheekh Maxamed Balcad dhammaan ardayda reer Buloburti waxaan u rajaynayaa sanadkan inay kaalin wax u leh ka keeni doonaan in degmada kala doonaan kaalmaha ugu sareeyo imtixaanka ardayda saaxiibaday iskuulada degmada ka socda waxaan u rajaynayaa mustaqbal ifafaala leh waxaan u rajaynayaa inay soo gudbi doonaan ee guul taariikhina gaari doonaan anigoo yaa magacay Cabdikariin Ilyas Muumin maanta waxaan u fadhiisanaynaa imtixaankii sanad dugsiyeedka galaaska form 4 waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka qayb galay imtixaanka form 4 anigoo caafimaadkayga taam yahay waxaan ku faraxsanahay mar labaad inaan degmadayda ku galaayo aan wax ku soo bartay waliba waxaan ku sii faraxsanahay inaan ku galaayo qolkii aan casharka ku qaadanayay oo ku soo aaday loo lambarkayga iyo nasiibkayga waxaan rajaynayaa natiijo fiican inaan ka keeno imtixaanka dhammaan ardayda igu qolka ama ardayda form 4 ka dhammaan Soomaaliyana waxaan u rajaynayaa inay helaan natiijo aad iyo aad u fiican xarunta imtixaanka lagu galayo ayaa la geeyay ciidamo loogu talagalay inay sugaan ammaanka xaruntaasi iyo kormeerayaal loogu talagalay inay ilaaliyaan imtixaanka kuwaasi oo qaarkood ka socda wasaaradda waxbarashada Cabdisalaan Maxamed Ibrahim Cabdisalaan Habi Somali Cable Buloburti